kulanti wacan oo wanaagsan daawade halkan waa Hilal Production daawade waxaynu muuqaalkan ku eegi doonaa maxay dawladaha Afrika hawada ugu saaraan internetka tirada dalalka Suuriga xalibaada internetka ee Afrika ayaa sare u sii kacay Facebook Twitter ama WhatsApp toona ma shaqeynayaan arintaasi ayaa mid iska caadiya ka noqotay dalal badan oo ku yaala Afrika iyadoo dawladuhu ay mararka qaar xalibaan internetka iyo adeegsiga baraha bulshada Uganda ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee xayiraadaasi Suuriga ka hor doorashadii dalkaasi ka qabsoontay 14kii bishii January kuwa u dooda xuquuqda isticmaalka internetka ayaa sheegaya in talaabooyinkaasi ay yihiin kuwa wax caburinaya balse dawladaha ayaa inta badan ku dooda in talaabooyinkaasi ay gacan ka geysanayaan sugidda amniga siday u shaqaysaa xalibaadda internetka oo ay soo rogaan dawladaha Afrika dawladda ayaa xadidi karta isticmaalka internetka iyadoo amarkaasi siinaysa shirkadaha bixiya adeegyada internetka dalka Uganda tusaale ahaan dadka isticmaala baraha bulshada ayaa marka hore soo wariyay inay caqabad kala kulmeen isticmaalka websaydyada qaarkood kadibna dawladdu ayaa sheegtay inay amar ku siisay kuwa bixiya adeegyada internetka inay xalibaan baraha bulshada waxaana taasi xigtay amar kale oo ah in la xayiro guud ahaan isticmaalka internetka 13kii January hay'adda la socodka howlaha internetka ee NetBlocks la yiraahdo ayaa ku soo warantay in internetka isticmaalkiisa uu hoos u dhacay dalka Uganda wixii intaasi ka dambeeyay misadal oo ku yaala Afrika ayaa internetka xiray kiisaska dalalka xayiray adeegyada internetka ee qaaradda Afrika ayaa sare u sii kacisay Tanzania ayaa xirtay isticmaalka baraha bulshada intii ay socotay doorashada dalkaasi ka dhacday bishii Oktoobar 2020 bishii Juun ee sanadkan Itoobiya ayaa xayiraad ku soo rogtay internetka muddo bil ah waxayna ka dambeysay rabshadihii dalkaasi ka dhacay kadib dilkii fanaankii caanka ahaa ee dalkaasi lagu dilay Zimbabwe Togo Burundi Chad Mali Ghana ayaa sidoo kale marar kala duwan sanadkan xayiray isticmaalka baraha bulshada sanadkii 2019kii waxaa la diiwaan geliyay 25 jeer oo dalal kala duwan oo Afrika ay xayireen internetka halka sanadkii 2018kiina la diiwaan geliyay 20 mar oo dalalka Afrika ay xayiraad ku soo rogeen adeegyada internetka 2017kii 12 jeer ayaa xayiraad lagu soo rogay adeegyada internetka sida ay markaa shaaciyeen kooxo u dooda xuquuqda isticmaalka internetka oo ah kooxo madax bannaan oo la socda isticmaalka internetka dhammaan dalalka xayira internetka waxay amar siinayeen shirkadaha bixiya adeegyada kuwaas oo iyaguna ku qasban in ay u hoggaansamaan amaradaasi haddaba shirkadaha bixiya adeegyada internetka ma diidi karaan amaradaasi ay ku soo rogaan dawladaha in dawladuhu ay xalibaan internetka waxay ku xiran tahay awoodda ay saaraan shirkadaha isgaarsiinta ee dalalkooda ka shaqeeya iyo sida ay awaamiirtaasi u qaataan shirkadahaasi waxaa shati siiyo dawladaha taasi oo ka dhigan inay wajihi karaan ganaax iyo sidoo kale in shatiga lagala noqdo haddii ay dalabka dawladdu iska diidaan shirkadahu waxay xaq u leeyihiin inay racfaan geeyaan maxkamadaha balse in badan sidaasi ma yeelaan si kastaba ha ahaatee waxaa jira kiisas naadir ah oo maxkamadaha la geeyey sanadkii 2019kii maxkamad ku taala dalka Zimbabwe ayaa amar ku bixisay in internetka oo ay dawladdu xirtay dib loo furo iyadoo taasi ka jawaabaysa ayay dawladdu waxay soo rogtay shuruucyo cusub
oo ay ku adkeynayso awoodda ay dowladdu u leedahay inay xadidi karto adeegyada baraha bulshada. haddii aan internetka gebi ahaantiisba la xirin, waxaa jira qaabab dadweynuhu ay uga wareegan karaan xayiraadda dowladda si ay u isticmaalaan bogagga ay daneynayaan. qaar ka mida dowladaha Afrika ayaa ku doodaya inay sare u kacday wararka been abuurka ah uu sabab u yahay dhaqangelinta xayiraadaha soo noqnoqday, balse mucaaradka ayaa qaba intaasi ay tahay qiil aan waxba ka jirin oo ay dowladuhu Afrika ay ku banaysanayaan inay ku caburiyaan dadka ka aragtida duwan. haddaba daawade, haddii aad ka heshay muuqaalkan laagi loo saar, siina sheer garay oo saaxiibada la wadaag. halkan waa Hilaal Production.